kulan iyo daawasho haboon saaxiibayaal halkani waa xorriyo ku soo dhawaada wararkan idinka hayna Soomaaliya iyo caalamka xilligan waxa ugu waaweyn xildhibaanada dawladda Soomaaliya oo dareemay ciqaabta ay ku sugan yihiin shacabka Muqdisho baaq degdeg ah u diray dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cusublo oo ku maadsaday siyaasadda uu wax ku wajahayo madaxweyne Farmaajo Soomaaliland oo markii ugu horeysay ka hadashay arrintii ay u socdeen wafdigii Itoobiya ee Hargeysa yimid Soomaaliyana ku tilmaamtay inay ka soo horjeedo gooni isu taageeda goodax bare oo kala bilaabay isku dirka khilaafka Puntland iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya ciidanka dawladda Soomaaliya oo gudaha u galay deegaan ay ka sugnaayeen ururka Al-Shabaab qoor oo bilaabay qorshe lagu soo xirigelinaya xaafiyaal sunna iyo xaaf oo ka hor yimid arrintaasi siyaasad xumada dawladda Soomaaliya oo gaadhay heerkii ugu sareeyay iyo mas'uuliyiin looga yeeray Muqdisho akhbaaraadka dunida daawadayaal aan idin haynana waxa ugu waaweyn ururka midowga Yurub oo dal u aqoonsanaya dalka Falastiin qodobadaasi daawadayaal iyo qodobo kale oo aan idin qarinaya ayaad baahinta warkeena ku daawan doontaa haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay janaalkan fadlan subscribe inoo saar ayna ku bilownay daawadayaal sidii hordhaca wararkeenaba aad ku daawanaysaan ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay gebi ahaanba saaka xidheen qaybo ka mid ah wadooyinka waaweyn ee Muqdisho gaar ahaan wadada muhiimka ah Maka al-Mukarrama sidoo kale waxa ay xidheen agagaarka xarunta asluubta oo ay maanta ka dhacaysa dabaaldeg gaadiidka ayaa dib looga celinayaa wadooyinka xidhan waxaana lagu jiray gawaadhida dagaalka dhagaxaan iyo bir sababta loo xidhay jidadka waxa ay la waraadiyo sheegayaan inay tahay munaasabada asaaska ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo maanta lagu qabanayo Muqdisho 22 February 1970 ayaa la aasaasay ciidamada asluubta Soomaaliya waana muddo hadda laga joogo 50 sano waxaana munaasabada lagu maamuusay maalintan ka qayb galaya madax ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay waxa socotay qabanqaabada xuska 50 sano guurada ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo kamid ah afarta ciidan ee dalka dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga dalbaday in si degdeg ah ay u qaaday ciqaabta ay ku hayso shacabka ku nool magaalada Muqdisho xildhibaan Warsame Maxamed Xasan Joodax oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxda dawladda ugu baaqay in ciqaabta lagu hayo shacabka Muqdisho laga qaado waxa uu sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab hadii la dagaalayo loo baahan yahay in loogu tago goobaha ay joogaan oo aysan dawladdu ganjeelo ku xiran wadooyinka Muqdisho sida uu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan la furi doono qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ay xiran iyadoona wasiirka amniga uu shaaca ka qaaday inuu socdo qorshe lagu doonayo in dhagaxaanta looga qaado wadooyinka Muqdisho qaarkood oo ay shacabku dhib ku qabaan xildhibaan Warsame ayaa waxa uu tilmaamay in ammaanka dawladda ee xilligan ay ku wajahaysa qaab aan wanaagsaneyn isla markaana dhibaatada inta ugu badan dadka ay ku dhacayso uu ku tilmaamay shacabka waxa uu xusay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay la imaatinka qorshe midkan ka duwan oo uu sheegay kan inay ku fashilmeen qaybaha hore ee daawadayaal wararkeena ayaa daawanaysaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ay ka wada midaysan yihiin isla markaana ay si weyn uga wada hadleen arrimaha siyaasadeed ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dhaliilay sida dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay u wajahayso wada hadallada iyo soo xirigelinta walaalaha gobolada waqooyi ee xilligan Somaliland Xasan Sheekh ayaa sheegay in khilaafka ka dhaxeeya gobolada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya oo taagnaa muddo 30 sano aysan maanta suuragal ahayn in madaxweyne Farmaajo oo saaran diyaarad uu wata Abiy Ahmed oo ah cadowga koowaad ee Soomaaliya inuu soo xaliyo tabashada Somaliland madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadlay dhankiisa ayaa sheegay in marka hore ay habooneed in Somaliland lagala hadlo tabashadooda iyo halka loo socdo mustaqbalka balse arrinta isweydiinta mudan ay tahay waxa dawladaha dariska ah soo dhaxgeliya arrintan Sheekh Shariif ayaa su'aal ka keenay waxa madaxweyne Farmaajo uu ka aaminsan yahay qadiyadan oo uu tilmaamay ma waxa uu ka aaminsan yahay dawladii hore inay ku saxneed arrinta gobolada waqooyi ay qaranka isku celinaysay mise waxa uu ka aaminsan yahay inuu yahay qalad dhacay waxa uu codsaday in Farmaajo looga fadhiyo cadeynta mowqifkiisa sida uu sheegay hogaamiyaha madasha xisbiyada siyaasadeed dalka dhinaca kale Sheekh Shariif Axmed ayaa arrinta isdhexgalka geeska Afrika ku dhaliilay hal arrin taas oo ah in dalka gudihiisa uu hadda kala xiran yahay oo maamul goboleedyada qaar deegaanadooda aysan tagi karin madaxda hogaamiso dawladda dhexe waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya siyaasadeeda xilligan ay tahay mid u muuqata qaab kali talisnimo isla markaana aan lagala tashanaynin dadka waxgalka u ah dalka Soomaaliya oo xusay in dawladdu ay qaadatay doorkii ay lahaayeen
dhinaciisa xildhibaan cabdiqaadir cosable oo kamid ah madasha xisbiyada qaran oo isna fagaaraha laga hadlayay ayaa waxa uu ka sheegay in markii loo sheegay in madaxweyne farmaajo habeen hore uu ka hadlayay xaflad lagu soo xiriyay kalfadhiga golayaasha dadka dhan ay ka sugayeen inuu faahfaahiyo waxa uu ka damacsan yahay iyo mowqifkiisa ku aadan sidii loo soo xerogelin lahaa Somaliland, balse uu is-ilowsiyo ay nasiib darro ahayd inuusan soo hadal qaadin arrintaasi masiiriga. sidoo kale xildhibaan cusable ayaa waxa uu soo dhaweeyay sharciga doorashooyinka qaranka ee la saxeexay, waxa uuna nasiib darro ku tilmaamay in xukuumadda uu hogaamiyo farmaajo ay u muuqato mid aan ogolayn inay u hoggaansato sharcigaasi, isagoo tilmaamay in dowladiisu ay qorsheynayso samaysiga muddo korodh aan la cayimin, arrintaasi oo uu tilmaamay haddii ay dalka ka dhacdo inay horseedi karto fowdo siyaasadeed. hadal hayn ballaaran ayaa labadii maalin ee ugu dambeeyay waxa ay ka taagneyd baraha bulshada, taas oo ku saabsaneed waxa uu salka ku hayo safar xubno ka tirsan dowladda Itoobiya ay ku soo gaadheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ujeedka ay Hargeysa u yimaadeen wafdigii ka socday dowladda Itoobiya ee uu horkacayay wasiirka maaliyadda dalkaasi Axmed Shide. wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Kore oo la hadlayay mid kamid ah warbaahinta waxa uu beeniyay in wafdigaasi ay u socdeen qorshe la xiriira imaatinka madaxweyne farmaajo ee magaalada Hargeysa. Kore ayaa waxa uu sheegay in wafdiga Axmed Shide aanay wax culays ah ku saaraynin xukuumadda Somaliland sidii farmaajo uu imaan lahaa magaalada, taas oo hore ay u diiday Somaliland. waxa uu intaas ku daray inaanay jirin wax iska bedelay mowqifka Somaliland ee dhawaan madaxweyne Biixi ka hor sheegay labada gole ee baarlamaanka. wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in ujeedka wafdigaasi uu ahaa arrimo ganacsi, gaar ahaan dekada Berbera oo Itoobiya ay saami ku leedahay DP World iyo dowladda Somaliland, iyo sidoo kale mashruuca jidka Berbera ee corridor. dowladda Somaliland iyo sidoo kale Itoobiya waxay leeyihiin xidhiidh aad u dhow oo deegaan ahaan iyo dal ahaan aan kala maarmin, waxaana laga wada hadlayay danaha guud ee ummadda Somaliland iyo Itoobiya u dhaxeeyay oo ay ka mid tahay ganacsiga, ayuu yidhi. wafdiga Itoobiya ayaa la sheegay inuu dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa. weli wax warar kama aysan soo saarin cidda la kulantay iyo waxyaabaha ka soo baxay kulankii labada dhinac dhex maray, balse warar ayaa waxa ay tilmaamayeen in qorshaha ay ku yimaadeen madaxdaasi magaalada Hargeysa uu ahaa sidii Somaliland looga dhaadhicin lahaa imaatinka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo shacabka deegaanada Somaliland iyo sidoo kale madaxdoodu ay si isku mid ah uga hor yimaadeen inuu soo gaadho magaalada Hargeysa isla markaana lagu soo dhaweeyo. shacabka Somaliland ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan u dul qaadan doonin in madaxweyne farmaajo uu soo gaadho magaalada Hargeysa isagoo matalaya dalka Soomaaliya, balse waxa ay tilmaameen taa beddelkeeda marnaba inaysan dhici karin arrin farmaajo uu ku imanayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu faray bahda waxbarashada oo ay ugu horeeyaan daladaha maamul goboleedyada iyo dugsiyada dalka inay xogtooda ku soo gudbiyaan xog la daabacay oo ay ku wada shaqeynayaan. sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay inay joojisay in dugsiyada sare laga soo qaado warqad ama foomam arday leeyahay oo sanadihii tagtay la isticmaali jiray. dhanka daladaha waxa ay wasaaradda waxbarashadu fartay inay ka sugayso tix ama sidoo kale liis arday oo shaabadaysan kaas oo u xidhan dugsi kasta oo ka jira dalka. waxaa lagu tilmaamay qoraalka sidoo kale in 75% iskuulada ku yaala maamulka gobolka Banaadir ay si wanaagsan u qaabilaan arrintan isla markaana laga hayo. wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamay inuusan jiri doonin hal arday iyo hal dugsi oo ka maqnaan doona nidaamka cusub ee wasaaradda, waxayna tani ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan la xaliyay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay madaxda dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka Puntland. arrintaas oo salka ku haysay arrimaha waxbarashada oo si weyn la iskugu maandhaafsanaa, balse dhawaan xildhibaano ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay shaaciyeen in la xaliyay. lama aqaano sida maamulka Puntland ay u qaabili doonto hadalkan mar kale ka soo baxay wasaaradda. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo ka kala tirsan gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay gudaha u galeen deegaanka Daniga oo la sheegay inay ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan xarakada Al-Shabaab. ila dadka deegaanka ah ayaa xorriyo u sheegay in haatan la maqlayo rasaas teel ah isla markaana xaaladdu ay tahay mid kacsan. sidoo kale wararku waxay intaas ku darayaan inuu jiro qasaare
khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay howlgalkaasi balse aan la ogeyn inta uu leegyahay. saraakiil ka tirsan kuwa militariga dowladda federaalk Soomaaliya oo warbaahinta ku hadasha afka dowladda la hadlaya sheegay in ujeedku uu yahay sidii looga hortagi lahaa weeraro ay tilmaameen in dagaalyahanada Al-Shabaab ay soo abaabulayaan. inta badan dagaalyahanadan ayaa weeraradooda ugu xoogan ka fuliya wadada isku xidha degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana meeshaasi khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa garabka siiya ee AMISOM. ولداوديل wararkeena ayaa daawanaysan markana deegaanada Galmudug. hogaamiyaha dowladda Soomaaliya ee aqoonsan tahay Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa bilaabay dadaal xal loogu raadinayo xiisada siyaasadeed ee wali ka taagan maamulka Galmudug oo dhowr maamul u qaybsan kadib doorashadii bishii aan soo dhaafnay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa ka soconaya kulamo iyo sidoo kale dadaalo ku aadan sidii xal waara looga soo gaari lahaa xiisada ahlu sunna iyo sidoo kale maamulka madaxweyne Qorqor sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug oo hadda ku sugan Dhuusamareeb. qorshaha wada hadalada labada maamul ee ka dhisan magaalada Dhuusamareeb waxaa ka qayb qaadanaya odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka ururada bulshada rayidka ee deegaanada Galmudug kuwaas oo xal u raadinaya khilaafka madaxda Galmudug. wasiirka tamarta maamulka Galmudug Axmed Shire Faragle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Qorqor ku howlan yahay sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa arrimaha Galmudug. waxa uu tilmaamay in wada hadal uu kula jiro maamulada ay hogaamiyeen Sheekh Maxamed Shaakir iyo Axmed Ducaale Gelle Xaafo mid kasta sheeganaya madaxweynaha rasmiga ah ee Galmudug. xaaladda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug muddo 8 bilood ma ahan mid ku taagan caga badan, waxaana doorashadii ugu dambeysay ay dowladdu ku sheegtay inay tahay mid sax ah sii kala geysay dadkii halkaas ku dhaqnaa maadaama dadkaasi ay ku kala tageen arrimaha doorashooyinka ee muddooyinkan. waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaale Gelle Xaafo gabi ahaanba uu ka hor yimid wada hadal uu la yeeshay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, walow ay jiraan warar sheegaya in lacag la siinayo xabsi loogu qanciyo arrinta isla markaana uu aydo saxsahaanshaha doorashada lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Axmed Ducaale Gelle Xaafo madaxweynihii dowlad goboleedkii Galmudug balse aan waqtigiisu meesha uu ku dhamaaday la shaacin ayaa waxa uu tilmaamay in marnaba uusan aqbali doonin in gacantiisa ay ka baxdo Galmudug. halka daawadayaal wararkaasi aad kala socotaan waa barteena Al-Xurriye imikana akhbaraadka dunida. dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay dal u aqoonsadaan Falastiin kadib hindise looga gudbiyay dalka Luxembourg. wargeys ka soo baxa dalka Israel ayaa qoray in wasiirka arrimaha dibadda Luxembourg Jean Alebsion uu arrintaasi kala hadlay dhigiisa Yurub iyadoo qorshuhu yahay heshiis la isku raacsan yahay oo lagu aqoonsanayo Falastiin. hindisahan ayaa waxaa lagala hadlay wasiirada arrimaha dibadda dowladaha Faransiiska, Spain, Finland, Ireland, Portugal, Malta, Sweden iyo sidoo kale Slovenia sida ay sheegeen ilo wareedyo laga soo xigtay warbixinta. casuumaadda uu fidiyay wasiirku ayaa la timid midbaaq hore oo bishii December 2019 si isku mid ah u soo jeediyeen dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub kadib markii uu warqad u diray madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ururkaasi kaas oo ku sheegay in sida kaliya lagu badbaadin karo xalka labada dal uu yahay in la wada abuuro xaalad isku dhigan oo u dhaxaysa Falastiin iyo Israel. horumarkan cusub ayaa loo arkaa in jawaabtooda uu yahay qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee loogu magac diray heshiiska qarniga kaasi oo si cadhal ay u diideen Falastiiniyiinta kuna qeexeen mid la iskugu dhiibayo dalabyada Israel. guud ahaan daawadayaal war waxaan idinka haynay dalka iyo daafaha caalamku waa inta mar kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.